guurka iyo tirtirsiintiisu waa wax naftu iska jeceshayba marka hore oo iyadoo cunno lagu tirtirsiiyey wax cun haddii lagu idhaa ka war awal baad u heellanayd guurkuna waa sidoo kale laakiin dhaqanka qofka muslimka ah guriguu ka muuqdaa umamkuna jiritaanka ummadeedna waa guryo laysu geegeeyey guryuhu hadday degan yihiin oo xasiloon yihiin oo ilaahay cabsidiisa ay ku maran tahay ummadoo dhan baa xasilaysa guryuhu hadday karayaanna waxay u badan tahay inaan dadkuna degin sideedabana bini aadamku xuquuq kuma wada socdo xuquuqda waa wax adag haddii lagu yidhaahdo xaqayga halkaa dhig adna xaqiisa halkaa dhig laba qofoo bini aadami waa adagta laakiin bini aadamku wuxuu ku wada socdaa in lays ixtiraamo oo laysu tanaasulo oo lays dhammaystiro oo dadku ay isdhammaystiraan sida daraaddeed xuquuqda qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay inta badan waa xuquuq si mutlaqa u warramaysa oo wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaahay leeyahy wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka waxa kula dhaqantaan baa ilaahay leeyahy macruuf wax curfiga ku fiican oo la garanayo sama kula dhaqma samahaasi wuu joogayaa xataa marka la kala tegaya baa ilaahay ku tilmaamay faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf baa la yidhi xataa hadday kala teg gaadho waa in macruuf lagu kala tagaa marka asalku waa in macruufkaa lagu wada joogaa ninka iyo gabadha xuquuqda ka dhaxaysa badh waa xuquuq maadiya xuquuq maadiya maalan sadaaq baa kugu waajibay nafaqaa kugu waajibtay sakan baa kugu waajibay iyada furaash baa ku waajibay waxaasoo dhami waa xuquuq maadiya waxna waa xuquuq ka gedisan maadada oo ah dhaqan iyo akhlaaq iyo bini aadamku siduu wada joogi karo bini aadamku wuxuu ku wada joogaa waa akhlaaqda markay dhalintu isguursanayso waxaan dhahaa qof waliba krem buu ismariyaa labeentiisu sheegaa intaada jocjocornimadaa waad qarsataa un soo maaha cid koru soo qaadoo tidhaahdaa iinahana waan leeyahay ma jirto nin waliba fariidnimadiisa iyo inuu ragga ka laga qaata yahay buu sheegaa habluhuna sidoo kale laakiin marka guriga la tago real life baa la galaa nolosha dhabtaa kumaa tahay markaasaa la ogaanaya soomaalidu maxay ku mahmaahi jirtay jid ma la martay jidiin ma la cuntay jabad ma la degtay bay yidhaahdaan waa weedhi cumar laga soo naqlin jiray qofka waxaad baran kartaa bay yidhaahdaan marka aada safar wada gashaan idan isku kiin xidhee wax idinka dhexeeyaan ama markaa jabad wada degtaan bay yidhaahdaan markaa isku degaan noqotaan dee qofka dumara isku degaan baa noqoteen qol yar baa u wada hoyateen saa daraaddeed xuquuq badan badan baa la ysku leeyahy ninkuna wacaashiruhunna bilmacruuf baa la yidhi iyadana waxaa la yidhi walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf iyana inta lagu leeyahay in la midoo macruufa bay leedahay walilrijaali daraja baa markaa caashiruhunna bilmacruuf baa la yidhi iyadana waxaa la yidhi walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf iyana inta lagu leeyahay in la midoo macruufa bay leedahay walilrijaali daraja baa markaa la tilmaamay ninku mid dheeraada buu leeyahay oo waa maxay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu aayaddaasi intay tilmaamayso rijaalku waxa ay dheer yihiin gabadhee quri waxa weeyaan marka guriga la joogo inay qiwaamatulbeyt leeyihiin guriga maamulkiisa inay leeyihiin waxaan idhaahdaa idaaradda reer galbeed iyo sida wax loo maamulo aad bay ugu guulaysteen meel qura shirkad qura bay diideen idaaraddeedii shirkaddaasina way ka burburtay galbeed oo dhan galbeedka marka nimankan reer galbeed ee dee culuumul idaara inoo soo waariday ee waxaan la daraaseeyey tirada badan la keenay
هدي شركات هدي دولة هدي مؤسسات هدي سيستم إداري هدي أورجانيزيشن سيستم إداري هذا في عم بيلاقينا هيراركي كلا كورية عندنا ما مشوا عندنا تحت كوتشرته ودبتنا لك على دمبيو ميل بيديدين لك على دمبيو وغوريا غورو كلا سرين ما لها بيد هذا إنك يا قبل وسكسيمين دبتنا وبربرة شركة أن كلا سرين لها يعني ما صعطه وحشري كلام معها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي صدح قفداتنا ما لعد لا شوكتان أمير ياش هذا سفر كشرتان أمير سمايس تبع بني آدم كهدو وذا النولي هيبة وين شرتا عد وحدارين يسا عد وحمامول يسا وين شرتا سناني ما شرتو لقى هاد لما يبني آدم نمذا ما كسي مني ها أدقى مدحوينو بني آدم نمذا ما كسي منتين لكن سلطو لي ديراده والله إجمدي إنه سلطة داسي هيو guriga sultadiisa waxay gacanta ugu jirtaa ninka haday sulta timaadana maamul haduu yimaadana maxaa ka waajiba taaca maamul aan la dacini ma jiro dileeyada shirkadda nin baa maamula laakiin shaqaalu ku yeeli maayaan ma yeeshi shirkad soconaysa noqonaysa din maamul yimaadana waa in taaca timaada sida ogeed ba quraanku wuxuu tilmaamayaa rijaalku iyaga qiwaamatul bayt leh maamulka guriga iyaga leh dumarkana markaa waxa korkooda saaran taaca inay la yimaadaan wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam hadaan cid uun faraya inay cid u sujuudo gabadhaan oran lahaa ninkaaga u sujuud macnaheedu waxa weeyaan inay taaca mutlaqa oo bil macruuf oo la timaado ayaa yana saaran haddii inaha la waayo in ninkuna dhaqan fiican guriga kula dhaqmo oo dhaqanka fiican inagu xagga lacagtu baynu ka naqaanaa ninka reerka biil fiican siiya waxa fiican siiya waxaynu moodnaa inuu nin fariida yahay laakiin maadada waxa ka fiican dhaqanka kale waxa allaaliya waxay diintu ina fartay waxa ugu horeeya cidana wada nooshiin haday naxariistay haday caafis tahay haday waxa shariicadu ina fartay ee akhlaaqiyata meesha lagu mumaaraseeyo meesha lagu dhaqan galiya waa guriga marka waxa habboon qofka muslimka ahi inuu gurigiisa dhaqanka ku yeesho ixtiraam laba qof oo is ixtiraamaya inay noqdaan laba qof oo hadal fiican ku wada hadlaya inay noqdaan laba qof oo haday wax isu sheegayaan si maangal ah iyo waqti ay suurtagal tahay isu sheegaya inay ahaadaan laba qof oo kala dambeyn leeyna ahaadaan laba qof oo isqadarinaya inay ahaadaan waxa laaliya waxa uu quraanku inoo tilmaamay ma xadiista nabiga alayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamtay ee dhaqan ee akhlaaqiyada waxa la rabaa